haybad waxaad u leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraa qiso naxdin iyo argagax leh oo ku dhacday gabadh Soomaaliyeed oo magaceedu yahay Nimco Xaaji Axmed. qisadan waxa idin socodsiinaya anigoo Cabdiraaqeel ah. qisadan waxa ay ku bilaabantay sidan oo ay Nimco tiri: waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed oo cimrigeedu jiro 38 sano. waxaan ku dhashay degmada Laascaanood ee gobolka Sool. dugsiga hoose waxaan ka galay magaalada Laascaanood. dugsiyada dhexe iyo sarena waxaan ku qaatay magaalada Burco. aabahay wuxuu dhintay anigoo 3 habeen jiray. waxaa qaniinay halaq. waxay soo korsatay hooyaday aniga iyo 4 hablood oo aan walaalanahay. Nimco waxay tiri iyadoo hadalkeygii sii wadataa waxaa kale oo ila dhashay 2 wiil oo mataano ah. labadii wiilba markay jireen 3 habeen ayaa halaq qaniinay oo ay geeriyoodeen. waxaa reerkayga halaq qaniinyadii ku baxay oo ku dhintay 8 ruux. aabahay, mataanihii aan walaalo ahayn, ayayday, hooyaday, habaryartay, wiil aanu ilmaadeer ahayn, eedaday iyo nin la isiiyey oo habeenkii ardaaga guriga seexan jiray oo ugu dambeyntii halaq qaniinay. waxaa dhacday marar badan in xubno reerkayga ka mid ahi baadi dooneen faaliso iyo ruux aleel roga oo faalka ku xeeldheer. marar badan ayaa marba sharaxaad gooniya reerka loo keenay. waxaa jirtay in muddo dheer reerkaygu maalin kasta oo Arbacaa 6 laxaad oo wada madax madow oo dharan la qali jiray oo inta uurku jirta laga saaro inta kale geed dhiyac ah la saari jiray. waxaa sidaa loo samayn jiray waxa ay ahayd nin faalka aad u yaqaanay oo meesha la yiraahdo Shaxda deganaa ayaa arrinta halaqa ee ku gadaamantay reerkayga wax laga su'aashay. wuxuuna ku jawaabay in reerka aan ka soo jeedno oo berigii Soomaalidu qabiilka aad ugu diriri jirtay, kibir lagu sheegi jiray, oo ay ahayd qarni hore oo ay dhibaato gaarsiiyeen reer culimo u badan oo jin ah. wuxuu ninkaasi yidhi halaqyadu waa culimadii reerka oo bahal hoose iska soo dhigay. sidaas awgeed si loo afwaajiyo waa inaad quudisaan oo idahaas wada dharan ee madaxa madowle hilibkooga aad geedkaas u dul saartaan. inkasta oo aan aad u rumaysan jiray sharax kasta oo tabaalada nagu habsatay layga siiyo, haddana markii aan weynaaday ee intaan Laascaanood ka tagay u guuray magaalada Burco asxaab cusubna yeeshay, ayaa sheekada iyo qaabka la isugu soo teebiyey oo dhan shaki iga galay. waxaan istareensiiyey in dhammaan inta jeer ee halaqu wax naga dilay ay ahaayeen amar ilaah iyo nasiib isgalay. maadaama aanan ku noqon Laascaanood muddo door ah, sheekadii oo dhan maskaxdayda way ka baxday. 1981 oo aan markaas fasalka 4 ka ahay dugsiga sare ee Sheekh Bashiir ee magaalada Burco ayaa aniga iyo 3 hablood oo aanu saaxiib ahayn waxaanu galnay filim lagu dhigayay sinimihii Ina Qulumbe. Nimco iyadoo hadalkeygii sii wadata waxay tiri: markii filimku dhammaaday ayaa aniga iyo gurigaygu ugu durugsanaa. waxaanu ku jiray sekada ka dambaysay bangiga dhexe ee Burco. hablihii kale ee soo dhaweeyay markay guriga kadinkiisii joojiyeen ayaanu halkii cabaar taagnayn. hable iyo caadadood waad ila garanaysaane in saacad ku dhow ayaanu halkii sheeko ka sii wadanay. markaanu sheeko kala laasan weynay ayaanu ismaacsalaamaynay oo anigu gurigayga duluq idhi. waxaan ku gataati dhacay sariirtaydii. Nimco hadalkayga sii wadata waxay tiri: waxaan ugu dhowaa masjid had iyo jeer eedaankiisu i toosiyo. subaxaas eedaankii wadaadku iima bixin oo ma maqlin. waxaan baraarugay 6dii subaxnimo intaan degdeg u gashaday balcadii oo in yaroo canjeero ah isdhaafiyey ayaan kadibna albaabka ka booday.
waxaan gashanaa kabo garaafiic ah oo cidhib taagan. markaan dixda bartankeedii marayay ayaa wax qodax aan u maleeyay cidhibta daf iga tidhi oo ay imudday. xanuunkii ayaan u adkaysan waayey, kadib waan foorarsaday oo aan isdhahay qodaxda iska goo. mise waxaan arkay dhiig badan oo iga soo burqanaya. intaan fadhiistay ayaan meeshii wax iga mudeen cabbaar dhiiggii ka masmasaxay. waxaan ku arki waayey wax qodax ah, iyadoo dhiiggii yaraaday laakiin weli uu soconayo dhiiggii. ayaa waxaan ku go-aansaday inaan iska sii lugeeyo. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi, markaan marayay cisbitaalka guud ee Burco kadinkiisa ayaa ku tashaday inaan ku baydho qaybta gargaarka degdega ah ee cisbitaalka. waxaan ugu tegay 2 hablood oo kalkaalisooyin ah iyo oday ingiriiskii kaga tegay oo dhakhtar ah. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi, markay hablihii iyo odaygii meeshii isbiirte iyo cudbi ay igu dhayeen oo ay marmariyeen ayay ku arkeen god daloola oo aad moodo in la qoday oo lugtayda ku yaala. waxay i weydiiyeen waxa i muday. markaasaan ugu jawaabay waxaan moodayay in qodaxi i mudday. iyadoo ay aad ula yaaban yihiin waxa daloolka noocaan ah jidhka ku sameeyey, ayay dhakhaatiir kale oo cisbitaalka guud joogay u yeedheen. waxay isku raaceen in habeenkii dhakhtarka lay dhigo. aniguna waxaan idhi, subaxa dugsi ayaa sugaya oo aan doonayaa inaan aado, ee fadlan ifasaxa gurigaygii ayaan aadayaa. waxay dhakhaatiirtii yidhaahdeen, ku sii dayn mayno. markii dambe ayaan ku fekeray malaha waxaa jira wax ay kaa qarinayaan. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi, habeenkii waxaan u hoyday dhakhtarkii. waxaa lay jiifiyey waadh dhinaca waqooyi galbeed xiga. sariirtayduna waxay ku dhegsanayd daaqad. fiidkii hore mar aan la sheekaysanayay dumar waadhka jiifay ayay dhowr jeer igula kaftameen, waxaad xigtaa oo jiiftaa dhinacii alla kajeed. waa dhismo gooni u taagan oo meydka la dhigo dadka dhintay. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi, sidaanu isaga kaftamaynay ayaanu dhammaantayaday aan wada seexannay. goortaanu cabbaar hurday ayaa meeshii ay wax iga mudeen aad ii kartay oo ay xanuuntay. taahaygii ayaa dumar kale oo meesha jiifay ku tooseen. waxay u yeedheen hablo kalkaalisooyin ah oo nayris ah oo dabadda isaga sheekaysanayay. markay ii yimaadeen ayay igu yidhaahdeen, asbiriinka liq oo cun, kadib seexo. nabarkii wuu iga gu'i waayey oo aad ayuu ii garaacay. sidii xanuunkii ii hayay ayaan gam'ay. anigoo riyo xun ku dhex jira ayaa mar qura laydhkii waadhka la shiday. iftiinkii ayaan ku toosay. ayaa waxaan indhaha ku dhuftay nin dheer oo ila taagan oo ilaa 6 fiit ilaa 5 fiit ah oo madow oo dhalaalaya oo midabkiisu yahay oo dhankayga ku soo socda. intaan ishagaajiyey ayaan soo yara fadhiistay. wax yar hale hada waan ku celinayaa qaybtaas. sidii xanuunkii ii hayay ayaan gam'ay oo aan seexday. anigoo riyo xun ku dhex jira ayaa mar qura laydhkii dhakhtarka la shiday. intaan iftiinkii ku toosay ayaa waxaan indhaha ku dhuftay nin dheer oo ilaa 6 fiit ah oo madow oo dhalaalaya. kadib dhankayga ayuu ku soo socday. intaan ishagaajiyey ayaan soo yaro fadhiistay. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi, intuu isa soo kay ag taagay ayuu intuu ilka caddeeyey igu yidhi, xanuunkii ma kaa go-ay? waxaan ugu jawaabay, imika haa, wax xanuun ah ima hayo. ma fadhiistaa sariirtaada dacalkeeda ayuu igu yidhi.
sabab aan ugu ogolaaday waan garan waayey. kadib waxaan ku dhahay haa soo fadhiiso. wuxuu ku fadhiistay sariirta dacalkeedii oo dhinaca adinkayga bidix ku beegan. intuu gacantiisa bidix dul saaray gacantaydii midig ayuu igu yidhi waad ladnaanaysaa oo waad fiicnaanaysaa ee ha werwerin. waxaan ugu jawaabay insha allah. markaasuu qoslay qosol ilka caddayn ah. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi waxaan is idhi magaciisa weydii. markaasuu intaanan hadlin intuu sare kacay ayuu jeebkiisa ka soo saaray kartuush yar oo af aanan markaas garanaynin ku qoran yahay. wuxuu igu yidhi marka dambe ee xanuunku qabto kiniinkaas xabad liq. markaasuu iga dhaqaaqay. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi ninkii dib dambe uma arag. daawadii uu isiiyeyna aad baan ugu caafimaaday. runtii dhakhaatiirtii oo dhammi way la yaabeen oo waxay yidhaahdeen hore umaanoonu arag. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi sanadkii 1983 ayaan magaalada madaraas ee waddanka hindiya waxbarasho dhakhtarnimo u tagay. waxaan galay machad ku yaala oo luuqadda lagu barto anigoo ku talo jiray inaan marka hore af ingiriisiga barto. fajac nimco oo hadalkaygii sii wadata waxay tidhi fajacyo ama kaag. waxaan kula kulmay ninkii cisbitaalka burco daawada igu keenay oo macalinka ah kulliyadda. waxaan ugu soo galay fasal aan xiisad ku lahaa anigoo wadnuhu aad ii garaacayo oo runtii aan kala garanaynin farxad iyo naxdin midka i haya. ayuu igu yidhi iska waran. markaasaan ugu jawaabay nabad. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi hadal iyo murti wuxuu noqday macalinkaygii. waxaana dhex martay isbarasho dheer. wuxuu diiday inaan ogaado qabiilka uu soomaali ka yahay. waxaan jeclaystay inaan ogaado ciddiisa inkasta oo lahjadiisu isugu jirtay togdheer iyo sool iyo mudug. haddana waxaan door biday inaan barasho guud awgeed ogaado cidda uu yahay reerkooda walaalihiis. balse wuu iiga dhaartay inuu ii sheego. waxaan u qaatay dadka soomaalidu yasto. runtiina wuxuu ahaa qof aad u macaan oo la xiiseeyo. waxaan is idhi mar haddii uu ku adkaystay inaanu kuu sheegin raaskiisa waxaa dhici karta inuu isleeyahay ama way ku yasi ama way ku diidi. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi waxaan ku qaatay sidiisii uu ahaa. waxaanu ku go-aansanay inaanu isguursanno bishii julaay 22keedii 1984 ayaanu ku aqalgalnay magaalada madaraas ee dalka hindiya. arooskaygu wuxuu ahaa mid gaar ah oo dad yar aanu ku soo casuunay. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi wuxuu soo casuumay 2 ruux oo aanan hore u arag. wiil gaaban oo tuur leh iyo gabadh aad u dheer oo qurux ilaahay u dhameeyey. dibinta sarena faruur yar ku leh. markii xafladdii dhammaatay ee aanu isku soo hadhnay ayaan weydiiyey cidda labadii ruux ahaayeen. markaasuu mowdiicii beddelay. aniguna waxaan u qaatay dad ay isku cid yihiin oo ay is-yaqaanaan. runtii waxaan jeclaystay inuu ii sheego. haddana wanaagga aan ku bartay awgii ayaanan ugu sii dirqiyin inuu jawaab iga siiyo dadkaas. nimco hadalkaygii sii wadata waxay tidhi 6 toddobaad markaanu guri lahayn ayaan subax keliya madax wareer iyo yalaalugo la soo toosay. waxaan qabtay dhakhtar nagu dhowaa. waxa laygu yidhi waxaad leedahay uur. habeenkaas iyo 8 habeen oo ku sii xigay muu soo hoyan oo guriga ma uusan iman. meel uu ku maqnaa maan ogeyn. subaxii dambe anigoo ka werwersan ayuu albaabka dalaq iigu soo yidhi. markaan u hinqaday inaan weydiiyo meesha uu ku maqnaa ayaa wuxuu ii soo saaray
diric aan lahaa oo aan inaabtiday oo burco joogtay uga imid. Nimco hadalkeygii sii wadata waxay tidhi, intaan aad u naxay ayaan ku idhi, xaggeed ka keentay? Wuxuu igu jawaabay, xaggaad ku ogeyd ayaan ka keenay. waxaan is idhi, wuu kugu dheeldheelayaa malaha, waa dirickii u eeg oo uu soo iibiyey. Nimco hadalkeygii sii wadata waxay tidhi, anigoo aan u jawaabin ayaan diricii ka qaaday oo aad u eegay, mise xitaa goodiga hoose meel uu diricu ka yara furtayna waa sidii aan ku ogaa ee uu burco ku yaalay. Wuxuu igu yidhi, sow uur ma lihid? Markaasaan ku idhi, haa. waxba dhali maysid buu iigu jawaabay, oo kadinka ayuu ka baxay, albaabka ayuu ka baxay. 9 bilood oo aan uur lahaa meel uu joogo maan arag. maalintii dambe ayaa fooshii qabatay. reer suudaan ah oo aanu deris ahayn ayaa dhakhtarka iila soo cararay. waxaan foolanayay 21 saacadood. waxaa isugu ka yimi dhakhaatiirtii cisbitaalka oo dhan. Nimco hadalkeygii sii wadata waxay tidhi, 8 subaxnimo ayaa dhiig soconaya mooye wax kale layga waayay. muddo 7 ku siman ayaan cisbitaalkii ku jiray. waxaa lay tallaabiyey dhakhtar haweenka takhasus ku ah oo ku yaala magaalada New Delhi. ilaa iyo maanta cilmiga sayniska iyo dhakhaatiirtu midnaba sharax kama bixin wixii aan 9 bilood uurka ku siday ee markii dambena la waayay, ayay tiri Nimco. oo hadalkeygii sii wadata waxay tiri, ninkii aan jeclaaday ee saygayga noqday weli meel dambe oo uu joogo war iyo wacal midnaba kama hayo. markaan dad badan qisadan uga waramay, waxaa laygu samriyey inaan jin guursaday. Nimco soo gabagabaysay hadalkeygii waxay tiri, waad ku mahadsantihiin samirka aad ku dhagaysateen qisadaydan la yaabka badan. qisadan waxay ku xusan tahay somalinet.com waxaana la soo daabacay 29 Noofembar 2000. waanad ku mahadsantihiin dhagaysigaad dhagaysateen qisadan. waxaana idila socodsiinayay anigoo Cabdiraabeel ah. fadlan haddii aad ka aragtay qisadan waxyaabo qaladaad ah waqtigaan akhrinayay, fadlan qaybta hoose ee kommentiga ku soo qor si aanu dib uga saxo. aad iyo aad ayaanad ugu mahadsan tahay.